بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى wuxuu ka soo waramay waxa dhexyaala gaalada iyo muslimka. nabiyullaahi muxamed sala allahu alayh wasalam iyo asxaabtiisa ridwaanullaahi calayhim oo markii aayadahanu soo degaayeen ayagu ahaa aljamaacatu almuslima oo allah subxaanahu wa tacaala uu u doortay inay qaadaan calankiisa waa ururkiisii iyo gaaladii markaa ka soo horjeedo yahuud iyo nasaaro iyo mushrikil carab iyo kuwa munaafiqiin la yidhaaho jabha daakhiliya iyaga la yidhaahdo intaasoo ka soo horjeedo alla ka soo waramay iyadoo haddaba ay ka soo bilaabatay arrintu udkhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khuطuwaati shaydaan. amarkaas iyo nahyigaas waxaan soo marna marka gaaladu inay adduunyada aad u jecel yihiin aakhiro hal xabo ku fali maayaan. dadka aakhira ka fikiraya adduunyada gacan bidxayhayana aaday u nacabin waa qursaan waxay leeyihiin waa wax ma tarayaal waa dad baaba ay leeyihiin
weligeedana sida ajirta nabi nuux alayhi salaam kuwii la joogi jiray waa yasi jireen asay wixii hadda wuxuu noqday geeda qorow noqday soo dooma sameeya meeshan bacaad kama doon ku socay markaasuu alla wuxuu ka waramay in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun haddaadna quursateen weydin quursanayna annaga qorshe ilaahayaan wadnaa amarka ilaahay funa doonta sancay alla yiri idinku waxas ma ogidin adduunyaad eriyaysiin allana subxaanahu wa tacaala ujeeddadii oo idin abuura garamaysiin jahannamaad ku sii socotiin haagaantaasaad ku socotiin waan idinla yaabanaa caqligiin intuu aada waa fiina hadeerna sidii waa xilligii nabi muxamed sala allahu alay wasalam saasay xilligii nabi nuux saasay haddana sidii waa alla markuu taa ka soo warramo wuxuu yidhi iskhilaafka heerkaa gaaraysaa laysu yasaayo aruu ka soo hadlo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyo bilxaqi uu ku soo dejiyey si dadka ismaan dhaafsan loo kala saaro ayuu ka sheekiyey waxa iskhilaafayana kitaabka su'aalan waa dadka aqoonta leh oo yahuud iyo nasaaro oo yaqaana diinta islaamka alladina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaahum way garanayaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam say wiilashooda u garahayaan waa meel iyo waxay haddaba ayagu hoggaan u yihiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisana ridwaanullaahi calayhim waa meel idan markaas alla wuxuu tilmaamay gardarra meesha ku jirta min bacdi maa jaa'athum albayinaat aayadii cadcadaayeen marka u yimaadeen kadib oo in diinta islaamka in lagu midoobo wixii alla soo dejiyey ee kitaabkaas ah in lagu midoobo ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu daba faylo inay tahay arrin wanaagsan badbaadadan adduunya aakhiraba ku jirto markay ogaadeen kadib ayay haddaba diideen ilaahay marka wuxuu leeyahay yaan hanuuninay inta diinta islaamka rumaysnaado iyadu markaa aan khutuwaatu shaydaan haba yaraatee sida aan u ogeynin fahada allahu aladiina aamanuu lima ikhtalafuu fiihi min alxaqi biidnih wallahu yahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim marka silmigu waa islaamku gebigiiba waa nabadgelyo uurkaa kuu nabadgelaya qofka keligiisaa nabadgelaya waxuu haddaba maaragtay qolo kastee qaadataa nabadgelayso maxay adduunka nabadgelay maciishatan dankanay ka badbaadi waxayna helaysaa xayaatan tayiba aakhare maxay ka badbaadee jaxiimo xayna hele jannay helaysaa qofkii khuduwaatu shaydaan raacane هذا إلهي هذا أدرع عضو الإسلام كقالت إلهي محوفري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر صومين شيطاننا محوفرة خطوات كيس وحوفرة وأن صامرنا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وحنكوف رساجتك إلهي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم خطوات الشيطان مركة وحكمده وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وحكمده إن الله سبحانه وتعالى وحو اسكت المامي أما رسولك سكت المامي تدادو لغمة المامك أما وحو الله يسدي دي رسولك يسدي دي إن تداوا كت الماما وحكمده إن هذا القول على الله بغير علم إن هذا ما تدادو إلهي وحكا سكيا العابدو ألا كودا ويها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى تاسع كمده وحا كمده إنا ترى إلهي وح إنه حلالين أذن أغين أما إنه حرمين أذن أغين إنا ترى ألا حلالي وألا حرمي ولا تقولوا على الله زمان ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إذا مركه taasaan soo hayna haddane qoladii haddii afka laga wada hadlo ee afka la isku khilaafo waxa ku gacanka hadal waxa yiraahayna ku xiga khilaafkaas oo afka waxa imaanaya gacanka hadal waa alla wuxuu sheegaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radhiyallahu alayhim in la imtixaanayo jannaan sida loo socdo سف بلار إذا سعد عن جنة لسكيه أورت امتحان دعاي أم حسبته وحماش كتشرع وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وحال السعودة جي حقا وحكى الحق معه قال إذا ما أنت اسكداي مسلم كي قال لك كر لا يوركاليا
waxaan bidacda iyo balaayadan iyo gaaladaba cararkan iyo qarshooyinkan waxaad samaysay xeerarkan qabaa'ilka lagu imtixaano khutuwaatu shaydaan iyo kuwa dawlad islaamaanaha dhahaya ama muslimaan u taliyayna dhahaye samaysanaya waxa la yiraahdo dasaatiirta ama xeerarka war khutuwaatu shaydaan waa iska daay murunkaas iyo waxa la xiriira mar hadduu dhaco gacanka xadalay u gudbee waa la imtixaana u leeyahay alle markaasuu la hadlaa nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radiyallahu alayhi am hasibtum waxad moodeen an tadkhulul jannata jannadi inaad galeysaan walamma yaatikum yidowsan wili idin imaanin mathalul ladina kuwi xaalkoodi khalaw tageen min qablikum idinka hortiin tageen jannada inaad sagaleysiin miyaad u moodeen maskaxdiina waxa ku jira am hasibtum waxad moodeen an tadkhulul jannata jannada inaad galeysaan ولما يأتيكم إيدو سن ولي إذين إيمان وهذا حالنا وكذا كرتا مثل الذين كوا حال كودي خلو تجن من قبلكم إذين كحورتين تجن ومديه إذين كوري نبي النوعية لقصوا بالله آدم بقصوا بالله وحي هذا وكرد أيجون إذين كردعين ميات هذا بمودي سنة جنة سجليسين مسكحين وحاسا كجر سواء هذا مسكحين وحاسكم جيران سال حلاقة سكرة إريقاقة الله ده جيلا ده دكانة ده كذا قرون كاقة على بتاع إيه فارماشيال كاقة إيه بارهاك هنا ساس يا سكجوكت أتجنا سكال إيدون امتحان إيمان ساس وما قبله إلهي ونقول يدين حوليه مستم دتك إذن كوري وحي كوي مدي حي وكان مسد وحتابتهم أي الذين خلوا من قبلكم واحد البأساء حالة باس له أو فقري إيه وحي اللي حرير الصبول نمو إيه أي تابت إيه والضراء حالة دبله أو حنون أو كميديا محايا لي والغو قحيها نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر رضي الله عنه قذي قالين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لقال أنت تكتعب يا مرك مهاجرين واحد دبقحين وهذا مرت يقولكودي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم مستهم وحتى كواس البأساء حالة باس كلهذا فقر كمديا إيه والضراء وحالة دبك لهذا فقر كمديا وزلزلوا ضدك هراء إذن كهري ولا اللحي ولا جلجلي امتحانا إن لغو قاضي على اللحي جيبي قدبا حتى يقول الرسول إلى رسول كي الرسول كمذا أمدها هراء رسول شيء الله أصدري إيه والذين كويم آمنوا ربيان معه رسولك لجركي سرمين إلى أي كير هذانا لجلجلي متى نصر الله إلهي لمات كيسو قرمه وحدوا إيهي إلهي وحنا نصرك السوق مينو نصري ونصر جيسة وصده سنة آوي نصر إلهي قرمه ويها متى نصر الله إلهي لمات كيسو قرقار كيسو قرمه ويها أي كير هذا هو رسول إلهي هوشوا كلات بلنقاتك إلهي سبحانه وتعالى رسولك سبلن قاضي تدكاس أسيق الله الصعودة إني هدبا كوشكيا معناه دماه إنه إيمانا إله كوادها وسور أو متى نصر الله جوابت ليسات ألا هوي إن نصر الله إليه لمات كيسو قريب متدواي برئ يا قلبات النصر لك مهل وما النصر إلا من عند الله ودوي هاي ألا إن نصر الله قريب قرب كل شيء وحليده بحسبه واي واحد يعرف تقريب وإن لقول 40 سنة كذب 60 سنة كذب 20 سنة كذب إنه نقطع يعرف ما برية دنبو أي إسكان غاية كلية ما ألا إن نصر الله قريب دتك مركا نوع آس عمر إذن كوري إذن كنا سيدي أتسوغي سينوا والذين امتحانا وحي اللي هذا في المحن منح دا امتحانا دا وحا كجر الداقو سعدرت هذا حديثكم حواد ذاك الورد أن ما يستنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم سومين أعدك لو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وحاسو دان أكويال سعدرت هذا النبي وحوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره
jannada waxa lagu gadaamay waxa naftu nacabta nafta nacab barashada cilmiga barashadiisa ku amal falkiisa wixii horood u baratay 20 sano 30 sano 40 sano aad ku nooleed oo hadaba naftaadu u guuxaysay inaad ka goysaa laga raba hadaad ku amal fali weyso in baratane waa hadaba malcuunatan ala ku yaalata iimaanaysa in alladina yaktumuna wa tansamarna naftu waa dib dadka hadana u gudbi hadana markay imaartay dadku aad inta samayso waa kula dagaalamayaan oo gacan ka hadala ku xiga oo sabar oo dul qaado ila laga dilo masalanta jannada marka huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naaru bish shahawat naartana waxa lagu gadaamo dirbi looga dhigay waxa naftu jeceshahay iska jiifo iska kaftan iska baashaal badalkaaga iska cun hadaba maartay baaraga iska falo adduunyada moogtada waa jeceshahay naftu laakiin inaad hadaba tida diin islaamaan bara asan habeen maamal soo jeeda waana ku dhaqma dadkana waa u sheega gacan ka hadal markay gaartane waan adkaysana arin sahlan ma markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri huffatin naaru bishahawati wa huffatil jannatu bil makarih hadaad marka naftu waxay jeceshahay aad ka sabarto waxay nacabtaana aad ku sabar siiso ku adkaysiiso arinta ogolaysiiso jannadu halkaas ay ka dambaysaa falaqta hamal aqaba taagaas ka damay jannadu jirtaa ha u maleeyna inay sahlantaa nafya maalad bixiye ila inna sil'ata allahi ghaliya ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam badiicada ilaahi waa ghali ala inna sil'ata allahi aljanna badiicada ilaahina waa janno inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna janna galow marka waa in horta si fiican lagu imtixaano waa ilaahi imtixaanka nagu marido waxa kamid ah Soomaaliya kala ka soo qabo xaadacay Soomaaliya kala waxa dhacay maartay ilaa 100% muslim taalay jirmugta 100% muslim taasoo 100% muslimatiin hadda la imtixaana nala imtixaanad nin walba wuxuu anu kuma jiro in yaro hadaba maartay ilaa waa qariska tuur aan waaga soo harsan inta kale waxay yireen سمعنا واللغو قصبيا إن الراعي دولة كمل جار دولة يادستي ورجال دستي وركسبرة والخطوات الشيطان إذن قوة دع والسلم إذن كل حيه والنبدي إذن كل حيه والبعد الموت ربطين جهنم إذن جيسو كجوج وما يوحل ولا وأجنى لكن ظروف فاجرت هلك أورون ما صوفنا وأجنى لكن ظروف فاجرت جيسو هذا الله مركو كورم ما يهل جنينه إيمانه يوشيجا أو كعن كهذا لو دعا أيوه markaas marka gacanta laga hadlaayane xoolana waa loo baahan yahay xoogna waa loo baahan yahay nafya maalku ka warama marka saxaabada radhiyallahu alayhim way su'aalan yasalunaka way ku su'aalan saxaabadu maada maxayba yunfiquna ay bixinayaan waxay bixinayaan maxayhi waa yeysa ku bixinayaan yasalunaka dhowr meel waxa nagu soo horeysay yasalunaka an ahli Soomaaliya يسألونك ماذا ينفقون إلا الإسلام كقف مرة دو فهمه وتوسع وبرارجة طلاب والبوق هذا مركب وحوربا ما خطوات الشيطان وكسعدا مس السلم يجوا كشرة إنه هذا بقى قادو ربا محا هذا بقى سؤال أيان ماذا ينفقون قل له ما أنفقتم وحيد بحسان أو من خير فللوالدين لبدي وحده لنا أصنعي iyo wal aqrabiina ku dhawida badnaan marka labada waalid la soo dhaafo qaraabada inta kale dhawi badan iyo wal yataama agoomihi wal masaakiinti kuwa meel aadan aysan ogeyn iyo wabni sabiil jidka inankiisa horka waxaad bixiyeen waa wax khayr ah adiga bixinaysa iyo qofkaad sii hayso adduuniya aakhiraba wax ku khayr ah waxa dadka sii haysane waa dadka kuugu dhow labadii waalid u fiirsaad labadii waalid waa hadaba maartiya labadii adii ku dhaleen qul lama wixii anfaqtum ad bixiseen oo min khayr ah falil walidayn labadii wax dhaleen oo sunnad iyo wal aqrabiina ku dhawida badnaayeen oo markii labada waalid soo dhaafo inta dadka kala ka dhow ila kuwa saa kala dhow moogta iyo wal yataama agoomiyo u sunnad agoonka waxa la yiraahdaa mid ka yaro aabiis dhintay hooyadiis hadii dhimata raja la yiraahdaa wal masaakiinti u sunnad miskiinku waa midka asbaabtii oo dhan ay ka baabado meel dhaqaaqa aan garanay baahanne wabni sabiil jidkeenankiisu u sunnad inta la siinaya jidkeenankiisu waa maxay ruuxa musaafirka oo sahaydi ka gooday
muslimka oo dhex socdaaho inay wax siyaana laga rabaa ilaa uu xoolihiisa ka gaaro uusan dareemin cidlo wama tafcalu kuudahan waxad bixiseen min khayrin khayr ahne khayr macnaha xoolo xalaal ay bixiso xoolo xalaala ilaahay dartiina oo bixiso markaas oo khayr noqona wama tafcalu waxad fasheen min khayrin khayra fa inna allaha alle bihi maagaas caliibun alihi ogaal badan waayo wala socya alle marka xoolaha bixiya idinkoo naftiina iyo hadaba maaragtay labada waalid iyo waxa ku xigaba ku bixinaysiin markaad intaas marka dadka siiso xoolaha aad halkaa ku bixiso de xoolihii maaragtay ilaahay dartii aad u bixiso naftina waa laga rabaa wama tafcalu waxad fashaano min khayrin khayr uun waa guudaha nafaqa iyo wax kalaba fa inna allaha alle bihi maagaas caliimun alihi ogaal badan waay kutiba calaykum alqitaalu markaas naftina waa haddaa loo yimid nafta iyo maalku kalama haraan kutiba calaykum markiina waxaa lagu qoray alqitaalu dagaala lagu qoray dagaal lagu waajibiyey oo meel walba lagula diriraayo gaalada tii hore waxay aaday moogtahay waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum soomahayn la dirira fii aladiina yuqaatiluunakum kadibna waxaa yimid faqtuluu lmushrikiina xayثu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad suuratu tawba waa kutiba calaykum markiina waxaa lagu qoray alqitaalu dagaalkiyaa lagu qoro wili alle waa lagu dul qoray yaa qoray allah haddii dagaalka ma jecelna mase waa nacabna wa huwa qitaalku qaatala mastarkeeda waa qitaalan gaalada idinkaa foodiis geliyaysiin waa in badana la kala leexleexday wahwa qitaalkune kurhun mid la necab yaha waa lakum idinka le ma jeclidiin dagaal yaa jecelhe lan dagaal haddaad gasho waa lagu dilaa waa lagu dhaawacaa waa lagu eriyaa mar adaa adkaahaysid mar asaa kaa adkaahaya waa haddaba maaragtay ciribta dadka muslimka ha yeeshaano laakiin marka hore isbarbardhaca dhacaya watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas wahuwa qitaalkune kurhun waa mid la necab yaha lakum idinka laydiin necab yahay oo waad haddaba necbaysanaysiin waxa lagu nacayna hadda waa garato dhib badan uu leeyahay mashaqo badan uu leeyahay wuxuu leeyahay marka islaamku adiga waa ku alle ku abuuraa waxaan ku waajibiyahay moogta waa ku ogow waa nacabto ku leeyahay laakiin la hori ma wahwa kurhun lakum wa asaa laakiin wax kastood nacab tahay balaayo inay ku jirto hamoodin waay wa asaa waxaa sugan oo dhaba an takrahuu shay-an wax inaad nacaysiin wa huwa shaygaas aad nacaysiina khayrun lakum idin khayr badan u yahay waxaa ka mida dagaal la'aantaa ka mida dagaalkaa ka mida inaad nacabtiin haddaba waana khayru udiyo minaan wax leeska dhicin adiga iyo diintaadaba waa baaba'aysi cadowgu midin dayha diin islaamoo qaal badan iskala hera xataa goofafkan la degan yahay lagu degan yahay dhiigaa lagu degan yahay dhiig tugma laguma dekana nin walba doorara uga maqan asaa in yaa la maagaha layska dhiciyaa la yidhi aninkoo dhammaana maahayna meelan u nagama dambaysay ama naga wareega amba isku dhammaahayna nimankan niman naqaaya maaha loo kaajiye balle meeshaas dega a la yidhi saasay u badan yihin niman shiirkaagu gelin waxay yidhiheen sheegaagu ma galo niman warankaagu gelin warkaagu ma galo waxay yidhaahdeen haddaba maaragtay haddii adduunyada laga hadlaayo saasay u mahmahan diintuna waa ka qiimo badanta waxaasoo dhan maxaa yeele wixii aad jannana ku geli naarna uga badbaadi lahay waa diinta islaamkood baratood ku camal fashawa wacasaa waxaa sugan an takrahuu shay-an shay inaad necbaysaysiin wa huwa shayguna khayrun lakum idin khayr badan u yahay dagaalka waa idinla dhib badan yahay laakiin asaa lagu liibaanaa waa kaa adduunya aakhiraba oo adduunna cadowgaagaad ka adkaahe aakhirana jannaad gelo ilaahay ku ballan qaada jannadiisa fii sabiilillahi haddii aad haddaba ku dagaalanto ee lagugu dilo ixda alxusnayn aad leedahay walaa tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayn wacasaa waxaa sugan an tuxibuu shayan shay inaad jeclaahaysiin waa dagaal la'aanta nabad lagu nabar dhibay xad ku dheefe waa nabad beeneeye waa nabadee lagu leeya waa lagu dhagdhabo waa dhammaahe tartiibaa lagu cuna ma garad
وعسى وحسوا أن تحبوا شيئا شيئا جعلايسين ودقال أنتي وهو شيء قاسنا شر لكم أذنك أو إذيح من بديه مركة أو وحا ديساس أي تاي شيء أسوغ إيه حمي بدن أن جعلاي شيء إيه خير بدن أن نعبهاي أنوها دي محبوغي يا وحقون راعة سلمك قال خطوات شيطان اسكداف والله ألا يعلم أقوى سلمك ودينت إلهي إن الدين عند الله الإسلام وأنتم إذنكم لا تعلمون مؤجدين والله ألا يعلم وأجيه ألا وأنتم إذنكم لا تعلمون مؤجدين ماشي اسمرك وحكجرة بدر وكلا دجالة دع دوني كمديهين أقعنك هذا الكأور رياض دعي بدر سومين سورة العمران نقول ما دونا دي الله دون بدر وحي ربين صحابته رضوان عليهم حي ربين ولا حي ربين إلهينا حور ربين ولا حور ربين صحابته وحي ربين عير يرى مارتي أبو سفيان هجاميها إن عكتك صادف تاني حوجا بيلا لجهله إلهي عيرتيو يكفجي أو نمانك كيم مذي مكة وأبي جهل وطي أو جانية وينايو إلهي كان وأن عبيسنا مجعل انتس وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين عيرتيو إلهي يكلح شو نمانك كلا هدي يسوع يمادين أو سو دوي مكت فودا الاسكلي إلهي النكدي كوش الله لا إله الدواتا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة عير هدي قبسلها يون أنت ممكن ربنا لو غسين الله مقولة ما بدروا كلا إماله وامية لكن والله يعلمه وأنتم لا تعلمون ألا وأجي إذن كنا مؤجدين صحابة الدوال قلقلي وزلزلوا لنا مركي أفر تجار على وجي ماذا حل كان هذا آياتها يسود دجايان أفر تجار على قفر يا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي زردان عداوة إن من كقوي يهود يا نصارى يا إمارة يا مشرك العرب يا منافقين أيجوا وردون كأوه أو جذا كتشلة أو حكت السينايان أفر تجار على قفر يا دولتنا عرضا واي الدون كان وحوج سوق رماي ملك إركال كل لوج سوق رماي إركال ساسيالا والهجا إلهي هجا سبحانه وتعالى مركز سؤال وعقوق بجبي والله يعلم وأنتم لا تعلمون سيسعتي قرقار قرمه ويمدي وحد أحزاب أسأل قلقلي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا على ولا ما تجيبينه أفر دقار كيمدي نبي صلى الله عليه وسلم حل قاس مركي لقار وحود الآن نغزوهم ولا يغزونا حدا إرينينا أو الدفاع عنها إنه هذا ما مرتيا دقال قادمين مركان دوال محايلة وحودا بيا مجرى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون لعبسي هذا مركز توضتك مركز دينت إلهي كتوصا أو كتابك السنة سيدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أصحابتي سردان عليهم أفهمي أقول توصي مركز تو عدادس يجي ماذا إلهي مقام بالسواية وقلما تكوان ولا فرح شيء فرت كودي الله دبت شوقا مركي أي دعوه مركز بولالا وإلهي الناس أوكينا لكن هذا دان توصلين أديك لفتا جد إبرة عيون سكشة دين إيه لكن أنكو توصلين برنامجك ما دعيسو إن قرقر كوي ماذا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أم بدري توصلين الصبر إيه تقوى الله جهلا إلهي وقولي وحدا كوعكته حاجة الدنيا جعل إذا وقار دعيا خلاف يمت حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون لك الفنين هذه تعالى اسكو شيء يا إلهي سبحانه وتعالى مركب حليه والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا وأجياي كتابك يا سنة إلهي سبحانه وتعالى علمك سواي وكنا يا سنة صحيحة ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومد مركة إني فأنت الرباه حان صومرنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص صومر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صومر تنحيته كتب عليكم القتال صومه حاربنا إنا نداه كتب عليكم القصاص إلى قصاص كما عيمنا حررنا نويا لو مارتيا حر سوماليا قدما هنا هاي كتب عليكم صومك وسومينا هاي صومك رمضان كبر بيشي بركة هذا لو جرا كتب عليكم القتال شربودا ربنا أنا مركب علينا كقاعدنا ماشي أنا مارتيا صومك إيقاعد
labada kala bisiga waay wixii yahuud ku tilmaanayeen Soomaa marka afatu'minuuna bi ba'd al-kitaabi wa takfuruuna bi ba'd abaalkeedu waxa fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashadd al-'adhab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun intaasay ku dhamaata marka infaaqa fi sabiilillah lagu bixiyo hore uga soo hadlay واتيذ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صمر تنه dad badan oo muhaajiriin ahaa jiro baahan wax lagu bixiyaa la marka saakiinti waa jirtaa agoonti waa jirtaa ibnu sabiilki waa jiraa waxa kale halkan ka warama dagaalka oo ilaahay waajibiyay oo korkeena ku qoray ma aha bilaha xurmada loo afarta bilood ma ku jirta mase kuma jirto منها 4 حرمات إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صومين أفرت بالوضع حرمة لها بكجر تمسك ومجرد تاسوك الله يسألونك ويك ويدينا عن الشهر بشي حق هذه هدنا كويدينا وسؤال كلي روح مركو دين الإسلام كأنه فلي أو رب سؤاله ورسها أي كذبتاي إذا ما الحدث يسن كأهين إن مركا أي ربان بشي حرمة له أي سؤالين عن الشهر كويديان الحرام حرمة الله حتى بش حقي كويديان قتال عن قتال كويديان في شهر حرام إلا دجال الله كقري بش أفرت بلاد ما كجرتا مس وأنت كلي سيد بلاد كلامية أفرت بلاد مجودينا مس هدي بلاها صلفت هذا قال كأنك بالله بما ينهضون نقب بالله مسك ببيهنا تاسو كورما قتال عن قتال كويديان وفيه في الشهر حرام اللي قدره قل له قتال دجال فيه في الشهر حرام اللي قدره كبير ذنب ويواي بلا حرمه لكم جرا ادوق بالله بميسد لكن هدي لو بالله وادن سومرني الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص صومين ادوق بالله بميسد لكن هدي لو بالله كعنا اسكر سارميس او اسك دحيه marka قتال قل قتال دغالا فيه في الشهر حرام لو دغالمو كبير وذنب وين ارين وين واي إلى عربتنا ويني جيران بلهان oo ay xurmay jireen nabiga sallallahu alayhi wasallam asuguna waa qiimeeyay oo qiimo la isla ogolyahay waxa dhacay marka arina dhacday oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ciidan uu diray oo la yiraahdo sariix ama lugmaroodi la yiraahdo ayaa arinu ka dhacday nabiga sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Jahsh la yiraahdo radiyallahu anhu ayuu warqadu dhiibay dadna waa ku diray ilaa 8 oo muhaajiriin u badnaay ama wada ahaayeen muhaajiriintii wuxuu meel heblaha daad tagto warqada fur hada iyadoo sideedaho xirana u dhiib meel heblaha daad tagto warqada fur markaad warqada furto waxa ku yaal akhriso ku amal fal dadka kula socdaan mid kamid ah ku qasbin inuu ku raaco kii rabana ha ku raaco kii rabane ha iska joogo meel hebla in tagtaan cadawga war nooga keena ku taala cadawga war nooga keena meeshaas maray ileen dhinac walba in goobtaan adu gashaal rabaa cadawgu meeshu maraan alla socoto meesha hadaba maartaya asuguna oo ku soo weerara waxa kale loo socda shaamay u safar jeena safaradooda waa in la socoto saad hadaba qaniya ka fuji ayagu xoolihiina uga soo tagteen ayagana loo majuujiyo in marka arintaas ay sameeyaan oo faray waa tagay markay meeshii oo warqadii u aqriyay waa raacan intooda badan labanino gaadiid ka dhuma maahin markay meeshii tageen waxa soo maray socdaal quraysh leedahay gaalada quraysheed oo hadaba maartay socda waana rajab bilowgiisa rajaba bilaaba raba ayagu marka meeshii markii ay ku arkeen nimankii waxay yiraahdeen ma galama samagal waxay yiraahdeen rajab dagaalna looma ogola rajab intoona dhalan aan hadaba galno rajab wuxuu kumida bilaa xurmadan 3 سرد وواحد فرد ليلة كل يسوق ونو تاجي معنا شوال ذو القعدة ذو الحجة إيه هذا ما مرتيا رجب كاس
wuxuu marka yidhi waxaan dhihi lahay muxaramaa ku jira muxaramaa ku jira waa haddaba maaragtay afarta bilood rajabna waa ka mid marka waxay yidhaahdeen nimankan haddaan dayno oon hadda jaanisiino xaramkii inaga gelaya xaramka haddii galaan lama diriri karo haddaan hadda marka aan ka gaarsiino laakiin waa noo ansaxay afar nimay ahaayeen nimanka safarka waday halna waa dileen labana waa soo qafaaleen halna waa ka carar waana rajab maalintii u horeysa ayagu laakiin waxay moodayaan inay tahay bishii ka horeysa oo haddaba maaragtay jumaadul aakhirkeeda inay tahay maalintu dambaysa inay tahay waxaa caddaata marka inay rajab bishii xurmada lahayd dadna dileen dadna qafaaleen dadna xoolana ay qaateen gaaladii waa qayliyeen muxamed iyo kuwa la socda dad waalan waay bil xurmadeed waxay soo wadana ka daran waa la qayliyey yahuud iyadu si gaaray u faashatay oo waxay tiri dagaal dhacay oo waxay tiri ninka la dilay camr ibn al-hadrami yaa la dhihi jiray al-hadrami waxay kala baxeen xadarat al-harb dagaal ay yimiday واقد ابن لا دهي جري واقد ابن عمرو واقدنا وقدت الحرب كفاشدين إلا waxay rabaan mogtahay dagaal oo hadaba maartay nabiga sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa radiyallahu alayhim al-jamaa al-muslima fi dhaka al-waqt waaye in hadaba adduunka iyo sumcad xumo u gasho hal mar agta la mariyay sidii xablay geel ku roogsaday amba il sacab la saar laga dhigo taasi rabaa waa abaableen gaaladii waa isla qayliyeen waa hada ilaahiya marka soo dejiye suurada aayadan uu soo dejiye saxaabada radiyallahu alayhim arinkaas sameeyeen nabiga markii uu yimideen sallallahu alayhi wasallam waxay yiraahdeen wuxuu yiri anigu dagaal bishi xurmada ku dagaalama idin ma farin xanuuna ku dhaca ayagana adduunkeena dicaayado wada ayagana si gaar ah nabiga sallallahu alayhi wasallam hadana uga istaaga arinkoodiyo waa rafaad xanuuna qabto markaasay alla wuxuu leeyahay yasalunaka su'aalina qoto marka haddii maaragtay arrintaanu sidaan tahay maxaa haddaba maaragtay muslimku uu sugaa xala alla haddaba taladiisi keena yasaluunaka can ashahri alxaraami ku weydiiyayaan qitaalnay ku weydiiyaan fiihi fi shahri alxaraami lagu dagaalamo ee qulle qitaalun dagaal fiihi fi shahri alxaraami lagu dagaalamo kabiiru dembi waayo eeday galeen waaye dulmiga aad u gashay inaad qirataa laga raba mogta laakiin cadowgan qaylinaya oo buuqaya ee dhahaya nimanku eeday galeen asugu wuxuu galay ma sheego waaya markaas alla yiri wasadun reebid iyo ka jeedin dadka laga jeediyo can sabiilillah ila jidkiisa xaq laga jeediyo ee khuduwaatu shaydaan lagu agaasimo iyo wa kufrun diidmo iyo kufrin oo bihi alla lagu kufriyo laba mata wal masjidil haram xaqiisana la reebo can sabiilillah ku cadfantahay iyo ikhraaju ahlihi masjidil haram ahlkiisa la bixintiisa minhu min al-masjidil haram laga bixiyo akbar weynan badan inda allah ila agtiisa ku weynin badan muslimku aad waa galo bishi xurmada leedo dadna dilay xoolana soo qaadadana soo qafaalay taas war shira waay nimanka laakiin ayagu dicaayada wadee muslimka sida dhulka inay ula jaraan raba ayagu ma cadaysina maya waxay sameeyeen ka weyn أفر واي وماغو وصد عن سبيل الله كو وكفر به بالله إيه والمسجد وصد عن المسجد الحرام واي معناه إيه وإخراج أهله مسجد الحرام أهل كيس بحين لبحيون منه من المسجد الحرام لقى بحي أهل كيس أي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصحابتي سردان الله عليهم أي هم الذين كفروا صومين وصدوكم عن المسجد الحرام يكسوا ساري أكبر مذكور كاسا كوين بدن عند الله إلى أكتيسا كوين بدن بش حرمته دحيل لغو دغالم marka wax ka weyn Allah timideen way quraanka hada u fiirso kooxdan urka ilaahay ayagu aad ma galaan macnaheedu ma dambiyay galeen laakiin nimanka dhahay sidii niman ayagu maradooda caddahay oo kana saanayeen ayagu waxay galeen waa beeq ilaahay agtiisa taasa ku weyn badan maalinka niman hadaba maartay gacnahoodu ay yihiin gacno nadiif ah waadinka dadka layseen waxaas waxa ka sii weyn badan wal fitnatu leexinti diinta dadka laga leeyo fitnada waxa laga wadaa dadkii oo si la garaaco oo la dubo diinta islaamka laga leexiyo wal fitnatu fitnadi oo dadka diinta islaamka laga leexiyo alla laga furo ibliis lagu xiro ya akbar weynin badan min alqatl dilka xaqiisa ka weynin badan nafa la dilay leeyin mogta waxa ka weynin badan fitnada dadka lagu hayo
haddar sidaan waay argaxiso waay dadkay leeyahaya waa qarxihaya waa haddaba maaragtay afduubaya waa marjihaya waa gowracaya waa haddaba maaragtay ayagu meeqay wadaan cir waa kaa duqayhaya dhul waa kaa duqaya tawgiya tangiya jiitamay kor dayaaradiyaa joogta markabku wuxuu joogaa badda haddii diin islaam xaggeed la yidhaha qofkii aada meeqaa waa kirishtaamooda ay leeyihiin oo cabsatay ee diinta islaamka laga leexiyey adigu hal aakaad haysataa ama meehee wax yaroo sidii muufe la dubaayo bamba yarood samaysatay oon warshad iyo laha inaad haysataa intaasaad ku tuuree intaada u muuqatee uma muuqato ayaga intooda haddeertan sidii waa marka u fiirso maa ashbaha leylata bilbaarixa ileen waa inaad fahantaa waalfitnatu akbaru min alqatli nimankaanu marka waxay la ceebaan ma bil xurma leh may dhowraaya mayoo dadkii joogayoo nabi moxamed calayhi salatu salam ee asxaabtiisa ridwaanu calayhim bil xurma leh ayagoon fiirin oo masjidulxaraam aan fiirinay ka soo saareen ma bil xurma leh ay qiimeeyaan markay rabaanne waa qiimeeyaanoo bishii xurmadii aan lagu dheelayna markay rabaanne say rabaanay ka yeelaan marka dhufays baanaha geline dhabtu saasay u taagan tahay diinta islaamku ma aha diin oo qofka maaragtay diinta islaamka wadaaho qof aniga yaan ceeb leega sheegin mahaygaan fadhiha waa socahee waa shaqayhee wixii ceeb dhacane oo haddaba khalad aad samaysana diintaada waa ka sheegay qul qitaalun fiihi kabiirun waa ka cadowgane wuxuu yahaad haddaba tilmaamaysaa wuxuu yahaad ku tilmaamaysaa laakiin in haddaba maaragtay adiga kaliya un lagu tilmaamo ayaguna ay taamada iyo balaayada ay la yimaadeen aan marna la sheegin adee taasuma anfacayso marka alla wuxuu leeyahay waxay uga jeedaan markaad qaladka samayseen ma in qaladka aad iska saxdiin shaqadiinna wadatiinoo diintiinna sii wadatiinay rabaan mase maxay u dan leeyihiin ilaahay wuxuu leeyahay dicaayadda waxay uga jeedaan inay diinta idinka saaraan walaa yazaaluuna daymaayaan yuqaatiluunakum inay idinla dirirayaan xataa yaruduukum ilaa ay idinka celiyaan can diinikum diinkiina xaggiisa idinka celiyaan in istadaacuu hadday awoodaan warcad ma taha mase ma muslimka ujeedkiisu waxa waaye inuu dagaalamo ilaa diinta dadka wax ka fidnaha la waayo diintuna lilaahi u ahaato waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu lilaahi iyo kulluhu lilaahi suuratu alanfaal ku imaa doonta gaalana ujeeddadadu waxay tahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum ilaa idinka celiyaan can diinikum diinkiina xaggiisa idinka celiyaan in istadaacuu haddayba awoodaan maal iyo naf kaliya kuma simaan waxay rabaan حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ألا عدو قاين يقان والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مرك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابته سردان عليهم وي أقادين فروا قشوا ميل والبي كسور دقاقان إشيا كوغدان مالي كقبتاني وايين دقال هدي قلن واللوغ الرأي إلى أي مرك الدنبو وذا إسلامين فتح مكة مرك يتمدن منكو على هاجري آيين يحدث مرة وذا إسلامين إلهي سبحانه وتعالى وحل الدلوه أبي جهل إيه ماهينه أنت إلهي سبحانه وتعالى أقرأ إن إسلامان وإسلامين مركا الله وحوليه قفكي لا يزال لا نفي واي زالنا نفي واي نفي إثباتنا ليلة اللغة العربية مركا لغا الله لبن في مركا استبك عن وإثبات ويلي قوت ساسي شقادو التاي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا qofkii marka u dabca ee arinkooda aqbala xalkiisu maxuu yahay waman yartadid qofkii noqda minkum xaalow idin kamid yahay can diinihi diinkiisa xaggiisa ka noqda duruufaad jirto looma adkaysa kara in yidhaa waxaan khudawaatu shaydaan lagu leexiyo oo fayamut marka wadkiisu yimaadee kow yidhaahda وهو حال كافر الذي أو قرشي إبليس أو كسعدا دين إسلام كوا كتجي وهو كدورت الدين كفري أسيغو ساس قف كدنتا فأولئك كواس حابدت أعمالهم أعماشو دواب برتي في الدنيا دحي كبرتي والآخرة آخرة دحي وكبرتي وأولئك كواس أصحاب النار نارتي أصحاب تيدي واي هم أيقوا فيها نار دحي خالدون كوا رأيهن ماشي هالسا تعالى دقيستي إلهينا وحو ليه قف قال هذا ورك هذا يريد دينت إسلام كدبعة كبحة جهنم السجيسة حداد هدبت هذا دين جهنم كم عنده واد دجال مانه دجال كأفر تجار إيجو إسكسوبة يستيقوا إيمانه أدوك ممكن دور له أديك وجرته
أدون كان موقتين علموغان نستيدين موقت علموغي نينك أن آياتهم وركهين وحقوق بين نبتها أدون كان إنه نبدي أدو حزتين أدو عاوز سريرتا جيفتا حدي مس أم بقود جيد كل صوت جيفتو هذا لن أقول واسك حورية سوما هذا يريس لكن ما لنت أقولت إن حلا مسكوله إذا وحلا جاب بل إن الماس الركس أو ترى مركز سواء دبأ ترى مسك حديده بكوي الببال كسيلك أهاي سكون غما أغل كلين لا يسمى هنا لكن أنت لن أقول حده واسك حوريس dadka mar hadda waxay nabad waa xoolada iska ilaashay ma oga dhibaatada jirta in gaalana ay qalab samaysatay ay ku leeyihiin hadaba maartay yahay amaankaagu ma sugnaa ma hagaagi ilaahayna uu ku leeyahay manaad ayaga raacdo jahannama ku soo geeri kaliya ka xigta jahannamaad ka caymata jugada midna ma ka caymata waay anigu caadiyan iska saad u dhaysaa marka islaamnimada dhamma iska xoqda laga yaabo dadkan saas waa had waad aragtay إلهي وحول يا ومن يرتد قفك النقضة منكم حال وإذن كمديهاي ومسلمين تادم منكم يا أهل الإسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي سردان عليهم أغري عن ديني دين كيس قفك كالنقضة قف يموت كيريوضو انتواه حال كافر أو يهي فأولئك كواس حبيدت أعمالهم أعماشو دي برتي شغوين كي قبتين شهادتين كودي صلاة دودي سكة دودي صوم كودي حج كودي ورم بابا xabidka waxa la yiraahdo geelo kale ama xoolaha geelo kale in hadaba maartay geed suna u daaqo markaas waa barara ninkii hasha iska leeyahay u moodaa inay cayisha soo leeyahay ma sha Allah maanta geed fiican soo hasha waa dharganta bas galgalintay ku baqtay macnaheedu marka waa maxay muuqaalkii aad hadaba moodaysa inuu yahay cayil xaw noqday عذروا نقض هالشيء وأكون مت هذا هو اسم مثال حولنا وقلا عمل كجال هذا حداد إسلام ما هي كتكت أتجاله رمرك دي كقايب قاعدة هي تكتني وسيدي هالشيء برا كلو أدمود يسعيله قال أيجنا جهنم سوى يسور رمرك هذا وحكي جرمالي جهنم يكون رمرين ما قرت فحبيتت أعمالهم في الدنيا والآخرة مرك ماشى وحشر دي فيموت وهو كافر haddii uu yagaaloobo oo soo laabto kuma dhiman moogtaa fayamutu wa kaafirun ma markaas amalkiisi kama burin ay culimada qarkood qabaan ilan aayada waxa jira adilla mutlaqa la in ashrakta la yahbatanna amaluka aayada sada kuma qaydin oo kuma hadaba xirin in lagu dhinto aayadi kale ku jirta suuratul maaidah maxayad faman yakfur bil iimaani faqad habita amaluhu soomayn كما قيد مرت يا دمشق آية دمشق كقيد مركا تلك الآية المطلقة تحمل على المقيدة على الآية أو لقيدها لو حمارة مركا هدونا كل من أو إلهي نقشوا فتشيو كما ترواي معنا عمل كيس ما برونا حجك وروح حجي أيو مرة بات سي حجي ماي لكن هدو كل انتو أو دمات وعسوغا يمالون جهنم عين وأولئك كواس أصحاب النار نارتي أصحابتي وهم أيقوا فيها نار هذا خالدون كوا رايواي نارتي ولي قد كتير لك صوب حماي إلهي نقبت باتشو ماشي عن مركا والس ريها وحان ربا ردوا هذا كالله ومن يرتدي وارتد ارتدادا ردوا وإسلام كبح قارا وحي قبان هرت الأدلة القطعية أفر إسكوا فقسيين علماء الإسلام أما هالنقدان ومارتي أهل السنة أما أهل الأهواء هالنقداني أفر إني قالته والإسكوا فقسي ضدك إلهي مقعابي أما أعيانته أشخاص الله مقعابي سيد إبليس إيو قارون إيو فرعون إيو كالو الله مقعابي إني قاليهين أدلة سواء أدلة قطعية ولا كلام فيها تزوال الإسكوا فقسي وحكى له الإسكوا فقسي الضوائفته إلهي مقعب السيد اليهود لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مارت يهود يا نصارى كلا يا مشرك العرب وثانيين تي وحي لميدو دن ايغونا قاليين ولا اسكو فقسين وحكى له اسكو فقسين nimankii hadaba maartay nabinimada sheegto musaylimatul kadaab iyo taageerayalkiis ayaguna inay galeen wala isku waafaqsan waxa kale oo la isku waafaqsan yahay qofka adigu hadaad ogaato
nimankii oo zakadii dhiibi mayna yiri ayagana waa la isku waafaqay oo waa maxay zakada waxay yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam inna salawaatika sakanu lahum ihadi hadii adiga Abu Bakar oo salawaadaada iyo ducadaadu ma sakanay noota ilaahay nabiga uu sheegay adigu ma nabiyaata xoolaha noola wareeg waxa ka dhacwal ogaaday Abu Bakar radiyallahu anhu ya hogaamiyay saxaabana way ku waafaqeen kuwaas inay maanicu zakaa nimankii hadaba maartay zakada diiday wixii hada waxna waxay u diideen ta'wiil waxna ta'wiil la'aan ay ahayeen laakiin wala isku daray markii dagaalka tahay ayagana waa la isku waafaqay ayagana waa la ninkii diida rukn min arkaan islaam waa zakadi nimankii yiraahdo ma diibayn ta'wiilkoodana ta'wiil saa'iq ma hayn marka taasna waa la isku waafaqay waxa jira oo lagu daraa nimaad adigu ogtahay oo ku yiri anigu ma kiristaanan oo ku yiri adigu waa ku yiri waa ku cadeey ana u imid wuxuu ha waxa way maarta diinta islaamka diin lamidu ma jirto gaala waa in la jaraa waa in la cirib jaraa jihaadka waa inaan wadnaa Allahu akbar oo leeyani adigana wuxuu ku yiri kiristaanana ninkaas adigu waa ogtahay kristaan aha ku yiri adiga markii lagu eego xooya waajib waa inuu gaal yahay inaad rumayso aniga laakiin waa ii mujaamaleeyo runi ma sheegin moogtaa xaan leh ninkan gaal hadaata way arin ninkan hadda jihaad iyo ka wada hadlayno ninkan nin fiican waa u kaadi xaan ku kala duwanaa marka adiga marka inaad i'tiqaadiso qaadataa laga rabo inuu gaal yahay aniga laakiin ila adiga cadayso taa waa ninkan ana waxa ku ay beeno adiga ku sheego ku been guura ee ana xogta dhabta ka ay warso inaad iga dhaaracsiiso maahin ila adiga dhaaracsiiso anigu ku raaci ma karo maxay la xogtaada haysamaa anigu ila xogtaas aan ka helo taninkan wuxuu ugu laadlaan fiiriyaa Soomaaliya wax kale ma oga waa intaas sida Abu Bakar radiyallahu anhu markuu mas'aladii fahmay nimankan kama lamlay Umar radiyallahu anhu iyo waxay dadka la ilaaha illa diidan sadula dagaalamay ila aw wixii ka fahmo xogti Abu Bakar haysto kala oo ka helo ee marka uu la hawl galo saxaabadan ay saa u la hawl galaan wuxuu dhahay waa sidii dadka miska dilay adig miska dagaalamay dadka ahlu tawxiid waxa jirta marka maanta ridda jirta islaamka noqod maxay la dadku khutuwaatu shaydaan ay galeen dawladihii dastaatiray ka samaysteen waa hadaba maartay qabaa'ilka xeeraray ka samaysteen maanta waa jirta ridda Abu Hasan Nadi wa rahmatullahi alayhi kitaab qoray riddatun wala Abu Bakr laha ridda jirta maanta Abu Bakrna looma hayo Abu Bakr waqti darsiyo siiyay waa garaacay ilaa hadaba maartay la yaabo oo hadaba la sankooda cala laga la soo wixii ridaabo dhan qabaa'ilka ridaabo dhan waa la hagaajiyay marka maanta ridda jirta islaamka noqod way macnaha qofku haduu diido ilaahay subhanahu wa ta'ala daaquudki oo ku kufri haduu tala doonto waa ku gaalooba alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika hakuhig yuriduna an yatahakamu ila ad-daaquti wa qad umiru an yakfuru bihi inay ku kufriyaan la faray an yacbudu Allah wastanibu ad-daaquta Soomaaliya hadaba wayna u tala doonanaya إلهي حوري فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا الكوا بدني هي انت سان هذا مارت كدينا يا ماشي مركه قال وحو ما جيا كحسابتن قال وحو ما جيا هي لا سعو حوله إنه دينك كاسر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا كوا هدت شوغنا ساس واي كوا رنساس إن الذين كفروا ينفقون أموالهم حكوا حاجة ليصدوا عن سبيل الله الله مركز وحكا ورمايا nimankii ayagu maaratay idin ma farin dagaal bil xurmada lagu dagaal oo nabigu sallallahu alayhi wasallam arrinkoodii murug iyo walwal oo ahay ayu alla wuxuu leeyahay maya kuwaas ma burin amalkoodii inna alladheena kuwi aamanu rumayeen iyo walladheena kuwi haajireen wajahadu fi sabilillahi ila diisi ku jihaadeen wala saxaaba ilaa أولئك كواس يرجون رحمة الله إلى نحرسته رجيها إلهي إمارة نحرسته أي رجيها والله ألنا غفور عليه دافد بدن رحيم أن نحرس بدن ووعي جودو كي ردد أقبلي هوجا ساقلي كي كلو إسكهل جمي سكستو تبرو تحيبا إن الذين آمنوا أوتالا ما قوي إيمان هجرة جهاد سدح أسمرك ولي مذا وسدح عمل أولئك يرجون رحمة الله يوجوها وليأتيك الجنة قونايا أولئك يرجون رحمة الله سد على الصقف كان هاي سنة جنة رجيا يحول مديه أظن بير أبونا بدر سوي سوكلي
ma garat ama adoon haween guursanay ilma sugayso kale ilma sugay maarata haween guursamayst hada wax jira bata kuwan marka yarjuuna raxmatallaah waxa kaloon asbaabti ayagoon sameey rajayhay wa tamac ayatmacu kullu mar'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla إن الذين كوا آمنوا رمانوا والذين كوا هاجروا هاجرين وجاهدوا في سبيل الله لجد كيس دحيس كجهادين أولئك كوا سيرجون رحمة الله إلى حديث رجيها أيان وحواي دينتان ودقال القوة لكن حبنا قادم معايا واجر تريد ضدنا إمادنا الطائفة المنصورة جوكته ونبي نقول بشريعة صلى الله عليه وسلم ولي قد إن جريش لا تزال طائفة ولا يزالون يقاتلون قادتها لا تزال طائفة جوكته إذن كتاب كان إلهي موجدة إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون إسلام مركز الأحاديث تنه كتاب كان معاني دي سيفسر إساها 6 بناء الله إلالي وحانا هلينا ماشي اللي هذا كان يصدق كاثوليك أو اللي هذا طلياني كنت على رومو أنا قبسين مسلم دانا dad badana maanta waxay leeyihiin gobolkiisu muslim gowraca lagu jiido qarash lagu qaato kulli muslimiin dhamaa abaartooda soo bax hal xabanaga allah mayso ilaahay yiri yuriiduna an yudfi'u nur allah bi afwahihim nuurka ilaahay waxa rabaan nuurka ilaahay waa kan inay afafkooda ku damiyaan wayaba allah illa an yutimma nuurahu ilaahay wadiida nuurkiisa inuu dhameystira maahin mudadin ma jirto waligood ma ruheli maayaan dad way fidnayaan oo dabaysho dad waa qaade لكن أما الجورع لوجيدا ننك قوو ملك يسكو حرت عرك أوتاغو فليمدد بالسبب إلى السماء من كان يظن الله ينصره الله واي مكت ملك قدم قل متوب بغيركم الله مرك الدين تانوا الدين الله وتوا يوحي الله وتاسع عناي سيدا قرح ذا سدي صباح يسدي لي أدونكو دعايتك يدها أرجع سواي قرح ذا يكون لكو قبتي مقدمة لك الهرجل ليه يجاك الهرجل والسراج منيرا واي دين تان marka la socdahay laakiin ninkii aan yafahmo sidii u shaqeeyay aan fartoomin saami kula meelisu iska jooga markaas uu iska noqonaya candala geeleeda ku 100 waay hal candala doobta laga buuxma laakiin geeleeda isaga 100 tahay magarat wala alla markaas uu leeyahay ulaaika kuwaas yarjuuna rahmatallah wallahu alla ghafuur alayhi rahmatun rahimun ana hadis badan wallahu subhanahu wa ta'ala alam